xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID oo ay maanta ku beegneed maalintiisii saddexaad ee ololaha kaambeynka doorashada ayaa ololihiisa wuxuu u bedelay inuu kaalmeeyo dadka tabaalaysan sidii gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe hore uga sheegay saxaafadda maxalliga ah wuxuuna deeqo kala duwan oo isugu jira ari nool iyo lacag xisbigu gaarsiiyay maanta jeelka weyn iyo cisbitaalka guud ee degmada Ceelaf Weyn deeqdaas oo xisbigu u soo wakiishay gudoomiyaha xisbiga UCID ee degmada Ceelaf Weyn Yaasiin Maxamed Yuusuf iyo Cumar Salebaan oo kamid ah howlwadeenada xisbiga UCID waa kuwan iyagu تفاصيل dheeraad ka bixinaya deeqdaas waa kan dhakhtarkii degmada Ceelaf Weyn insha Allah taala isagaan soo booqanay saaka anigoo ah gudoomiyaha degmada UCID xisbiga UCID waxaan soo booqanay oo kormeer ku mareynay dhakhtarka iyo bukaan jiifkiisa oo adigu deeq lacagna waanu gaarsiinay aan anigoo uga wakiila gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe marka insha Allah taala dhaqaatiirta ee Dr. Jaamac Farax Samakaab sida uu ka warbixinay dhaqaatiirtii baan la kulanay outpatientkii waanu soo aragnay guul bay arintaas noogu soo dhamaatay ilaahay baanu caafimaad u weydiinaynaa dad kalena waxaanu leenahay inta kale ee Somalilanderkana lagu daydo waanu leenahay dadka laga warhayo baanu leenahay xisbiyada kale qaylada iyo kaambeeyga iyo sida geesinimada uu sameeyay Faysal ha ku daydeeno iyana maalmahooda ha ugu deeqeen baanu leenahay anigu waxaan oran lahaa horta de mahad celinta ilaahay baynu kaga dalbaynaa ajar inuu ku siiyo gudoomiyihii iyo xisbigii soo baxsaday sadaqadan wanaagsan ee dadka maxaabiista ah ee jeelkan ku xidhan ugu soo deeqay ayay ilaahay ajriga ka siiyay shacabkana ma kaga dooni mayno laakiin waxaanu leenahay geesiga Somaliland waa Faysal Cali Waraabe sidoo kale waxa iyaguna ka mahadnaqay deeqdaas la gaarsiiyay maanta taliyaha ciidanka asluubta degmada Ceelaf Weyn dhakhtarka cisbitaalka guud ee degmada Ceelaf Weyn iyo waliba qaar kamid ah bukaan jiifka cisbitaalka ee deeqdan lacagta la gudoonsiiyay maanta waxaanu ka gudoonay sida u maqlaysaanba ariga hortiina joogo oo ay ugu soo deeqeen maxaabiista xidhan taasoo aanan aragba wali wax noogu yimaado daryeelaya maxaabiista oo yahay wixii maxaabiista waxaasaan u wadnaa ku sadaqadaysanaysiin waxaanu u mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe oo maanta kaambeeyga ugu bedelay dadka masaakiinta qoys yar oo lacag ah taana waanu ka gudinay saaka inta meesha jiifta ee abdiyatriga caruurta ee nafaqadarrada ah iyo dadka oo beeshiga jiifa labadaba aawuna soo gaarsiiyay Yaasiin Maxamed Yuusuf lacagta loo soo dhiibay xisbiga UCID ugu soo dhiibay Faysal Cali Waraabe aad iyo baan ugu mahad celinaynaa wayna soo gaadhay dad fara badan oo family-ana waa nahay qaybina way baxday qaybina way joogtaa waanu ka gudoonay lacagta uu soo gaarsiiyay waxaan nahay anagu dadka cisbitaalada joogay laga keenay tuulooyinka laga soo guray xanuun jadeecada ku dhacay Yaasiin Maxamed Yuusuf gudoomiyaha xisbiga uu soo gaarsiiyay deeqda uu u soo dhiibay Faysal Cali Waraabe waanu ka gudoonay gacanta inoo galiyay waanu haynaa Axmed Mursal Askar TV iyo Caalamka Universal Ceelaf Weyn